Halkan waa Greenland ama dhulka cagaaran. Balse indhahaagu ma qabanayaan wax cagaar ah. Greenland waa jasiirad baraf ku midibeeyay, waana jasiiradda ugu weyn adduunka. Waxay ku fadhisaa dhul baaxad ahaan la eg 2 milyan oo kiiloomitir oo square. Waxayna la eg tahay Sacuudi Carabiya. Haba iska dhul weynaatee, dadyowga ku nool waxay gaarayaan 56,583 qof oo keliya. Waxayna inta badan degan yihiin magaalada Nuuk. Waxayna ku taalaa koonfurta jasiiradda. Boqolkiiba 83 jasiiraddan waxaa degan dad loo yaqaano Inuit oo asalkooda ka imaaday Alaska iyo Siberia. Inta soo hartayna waa dad caddaan ah iyo Danish. Maantana waxaan tijaabin doonaa waxay cunaan sida whaleska iyo sealka. Maadaama aan af Soomaali ku aqoon, sawiradooda ayaan idin soo bandhigi doonaa. Kadibna waxaan aadi doonaa aabe iyo wiilkiisa oo kalluumaysato ah. Waxayna malayga soo dabaan iyadoo heerka qabowga uu marayo -40 degree. Waxaana diyaarad ka soo raacnay Copenhagen. 5 saac ayaana u soo soconay Greenland. Aeroboortkan aan ku soo degnay waxaa dhistay dowladda Mareykanka sanadii 1941. Xilligaasna waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka. Halkan runway oo diyaaradaha waaweyn ay ku degi karaan oo keliya ayay haystaan. Waana sababta aan magaaladan ugu soo degnay. Diyaarad yar ayaana inta ka qaadan doonaa si aan u tagno magaalada ay dadka ugu badan ku nool yihiin ee Nuuk. Waxaan u duulaynaa Nuuk. Qoftan waa qofta keliya ee Greenland ugu caansan. Waxaa cajiib ah qaab dhismeedka magaaladan. Waxayna ku dhisma tahay magaalooyinka casriga ah. Magaalada Nuuk ma laha wadooyin kugu xiraya magaalooyin kale. Taas oo la micno ah inaadan gaari ku safri karin. Waa qasab inaad hesho helicopter ama doon. Inta badan jaam lagama fisho halkan. Waxaa yaala 6,550 gaari oo keliya. Markay imaato Samafarana 3 xabo oo keliya ayay haystaan. Tan ka sii daran ayaa ah in jasiiradda intaan la eg ay leedahay hal mool oo laga adeegto. Markaad xaggan ka istaagto Greenland, waxay indhahaagu qabanayaan dhismayaal ka turjumaya Greenlandtii hore iyo tan maanta. Waxaase cajiib ah in kalarada guryaha ay macno gaar ah u sameynayaan. Guryaha jaallaha ah waa isbitaalo, kuwa gaduudanna waa iskuulo. Kalar walba meeshan macne ayuu ugu fadhiyaa. Waxaan hoos tegi jirnay Denmark ilaa laga soo gaarayay 1953. Xilligaas oo aan yeelanay maamul noo gaar ah. 2009kiina dowlad iskeeda u taagan ayaan noqonay. Saas oo ay tahay, waxyaabaha qaar Denmark ayaan weli u daba fariisanaa. Waxaan haysanaa baasabooro Denmark ah. Baasaboorkeena inaan midowga Yurub ka mid nahay ayaa ku qoran, laakiin anaga Yurubiyaan ma nihi. Maadaama ay Denmark midowga Yurub ku jirto, anagana kama maranin. Ani hadda Yurubiyaan ma ahi, waxaan ahay Inuit. Waxaana asalkeena ka imaanay Alaska. Inuitkii ugu horeeyayna wuxuu inta imaaday 4,500 oo sano ka hor. Inta iyo Canadana 36 kiiloomitir oo keliya ay isku jiraan. 80% of Greenland. Boqolkiiba 80 dhulka Greenland baraf ayaa buux dhaafiyay. Meelaha geeska ah ayaa buuro ku yaala. Ereyga kayak waa erey Greenland ah. Doontan ayaa loo yaqaanaa, anaga ayaana alifnay. Tanna waa noocii ugu horeeyay ee aan isticmaalnay. Kuwani waa wixii aan xilliyadii hore isticmaali jirnay. Wax soo saarka Greenland waxa ugu caansan warshada kalluunka. Balse wax kasta oo ay warshada soo saarto, Denmark ayaa laga dhoofinayaa. Iyaga ayaana faa'iidada ugu badan ku qaba. Sidoo kale, waxaan dhaqaale ka sameynaa dalxiisayaasha. Wax walba oo aan waddankan ku isticmaalnana, Denmark ayaana looga soo dhoofiyaa. Qudaarta baa ugu yaraatee. Si qabowga halkan ka jira ay isaga difaacaan, waxay cunaan labadan xayawaan oo badda ku nool. Waa kuwan waxay cunaan. Kuwanna waa malay dabato shabagooda diyaarsanaysa. 400 ilaa 500 kiilo oo malay ah ayayna keenaan halkan.
Waxaan u soo laabanay halka mool ay haystaan. Waxaa la joogaa xilligii qadada. Waana arkaynaa sida meeshan looga adeegto. Kan waa weelka oo la qalajiyey. Maanta ayaadna tijaabinaysaa. Wax walba oo supermarket-kan dhex yaala, 90% Denmark ayaa laga keenay. Marka laga reebo waxyaabaha ay badda kala soo baxaan. Waana tijaabin doonaa cuntadooda, maadaama badda laga soo saaray oo ay xalaal tahay. Waxaana u soconaa gurigeeda, dhanka buuraha ayayna degan tahay. Waxay ku wanaagsan tahay inaysan buuq lahayn. Carruurtana markay bannaanka ku ciyaarayaan inaan looga baqayn gawaari iyo wax la mid ah. Waxaan cuni doonaa weel maqaarkiisa wata oo aan la karin. Waxayna u qaab eg tahay sushi. Iyada ayaana na tusi doonta sida la iskugu cuno. Dhadhanka marka loo fiiriyo dhadhan malaay ayuu leeyahay. Kan maadaama uu ceyrin yahay, ruugis badan kaama rabo. Waa markii ugu horeysay ee aan tijaabinayo. Okay. Oh my god. Tastes like sushi. Wuxuuna u dhadhan eg yahay sushi. Ninkan waa kabtanka ugu daada yar ee kaxeeya doonida noocan ah, waana 23 jir. Mid ka mid ah waxyaabaha la isaga goosho jasiiradahan waa in diyaarad aad u raacdo ama doon aad qaadato. Waxayna leeyihiin doon jaalle ah, waxayna u yaqaanaan taksiga biyaha. Muuqaalkeena maantana intaas ayuu noogu eg yahay. Fadlan like-ta ka ilaabin. Waa inoo mar kale iyo muuqaal kale.